kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena hadduu aleydma waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay faafahinta dagaal culus oo ka qarxay magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya oo hanjabaadii ugu kululaa marka la ka soo saartay arrimaha dhulka haddaba waxaa la wadaagi doonaa faafahin iyo macluumaad ku aadan taliye Asad Diyaano oo ku biiray muranka arinta dhulka ee magaalada Muqdisho ka taagan iyo hanjabaad kulul oo u diray saraakiil ciidan oo dhulkooda dowladdu ay boobayso kuwaasi oo cabashooyin iyaga oo dhigaya ka soo muuqday warbaahinta haddaba waxaa la wadaagi doonaa fariimaha hanjabaadda kulul ee saraakiishii hore ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee booliiska uu hogaaminayo Asad Diyaano ay hawadiisu mariyeen qodobada kale ee la wadaagi doono wararkeena qayb ka noqon doona waxa ka mid ah macluumaadkii ugu dambeeyay maxaa ka jira in madaxweyne Cirro oo ciidamo u dirayo magaalada Saylac si uu xakameeyo dhaqdhaqaaqa beesha Ciise ee ka wado magaalada Saylac warar iyo macluumaad arintaasi ku aadan ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa wararkeena qayb ka noqon doono xogihii ugu dambeeyay Axmed Madoobe oo dowlad gaar ah ku dhawaaqay haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad xasaasi ah oo ku aadan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo damacsan in uu qaado dhabihii Siciid Cabdullaahi Dani wararkaasi wixii nagu soo kordho ayaa daawad doontaan soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo bir muuqaalka laag saar aragtida wax dhisaysan ugu reeb qaybta hoose ee faalada dadweynaha waa hagaagan ku bilaawno wararkeena wararkeena waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalka laga soo warinayo in magaalada Muqdisho uu ka soconayo iyo banaanbaxyada waaweyn ee gilgilay Saybiyaano iyo sidoo kale dhulkii dabdamiska oo dowladda Soomaaliya marka la xiisadiisu ay ku soo kacday siday ku waramayaan wararka naga soo gaarayay magaalada Muqdisho waxa xiisadaada culus laga soo sheegay inay ka taagan tahay dhulkii Saybiyaano oo maanta ciidamo uu hogaaminayo Asad Diyaano ay la wareegeen kadib markii halkaasi dad shacab ah oo arkay iyada oo dhulku koox ganacsato ay dhisanayso ay dhigeen gadood xoog leh iyo banaanbaxyo waaweyn oo gilgilay aaga dhulka dabdamiska waxaana la soo sheegay in booliiska Soomaaliya ee awaamir culus ay soo saareen haddaba taliye Asad Diyaano ayaa hadda u muuqday inuu ku biiray dhaqdhaqaaqa arrimaha dhulboobka ee kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu eedeynayo iyadoo markii hore ay adeegsan jireen kaliya Macalin Mahdi iyo maamulka gobolka laakiin hadda Asad Diyaano ayaa qaaday tallaabadii ugu horeysay uu ku difaacayo qorshaha dhulboobka dowladda federaalka lagu eedeeyo macluumaadkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaalad car iyo wir ay ka taagan tahay aaga xaafadaha Saybiyaano iyo sidoo kale dhulka dabdamiska ciidamo taabacsan dadka deegaanka ayaa la soo sheegayaa in iyaguna la arkay iyaga oo hubarusi bilaabay xaaladda ayaa barakamale gaartay waxaana hadda dadka shacabka ay leeyihiin carbalsiya ganacsato dhulkii aad naga qaadeen haddii aanay dowladdu loogu adeegaynin halka ay booliiskuna leeyihiin wir ka hor imaada go'aamada dowladda taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa awaamirtii ugu cusubsleed ku dhawaaqay waxaana uu xitaa awaamirtu u diray saraakiil hore oo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan booliiska ka tirsanaa kuwaasi oo warbaahinta ka soo muuqday iyagoo cabasho ka ah dowladooda isku soo wada duube maanta ayaa taliye Macalin Mahdi sidoo kale taliye Asad Diyaano ay halkaasi tageen iyaga oo u digay dadka reer Muqdisho uguna digay inay hor istaagaan qorshaha damaca filla Soomaaliya ee ku aadan dhulka xaafadda dabdamiska in ay isku dayaan in lagu horimaado geeska kale tan daawadayaal Diyaano fiirino madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa la sheegayaa inuu aad u kaga carooday dhaqdhaqaaqa beesha Ciise ay ka bilowday magaalada Saylac halkaas oo isku dayayso in ay ka hirgeliso qorsho lagu soo maleegay magaalada City iyadoo oo qorshuhuna uu yahay in halkaasi laga hirgeliyo maamul cusub oo uu ku dhawaaqay maalmadii shalay ahayd ay ku dhawaaqeen ismada dhaqanka ee beesha Ciise madaxweyne Cirro oo arintaasi ka carooday ayaa la soo sheegayaa in ciidamo xooggan u diri doono halkaas si uu kaga hor istaago dhaqdhaqaaqa maamulka cusub ee qorshuhu yahay in la hoosgeeyo dowladda federaalka ay beeshaasi kaga dhawaaqdo halkaasi beesha Ciise ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqday maamulkaasi cusub waxaana ay sheegtay inay hoosgeyn doonto dowladda federaalka walow ay soo bandhigeen calan loo maleynayay inuu yahay calanka Jabuuti balse isku soo wada duube madaxweyne Cirro ma farxad gelin waxa ka dhacaya Saylac iyo aageeda iyadoo beesha Ciise ku adkaysanaysa hadii loo ogolaan waayo inay dhigtaan munaasabadooda bandhiga buuga xir Ciise in iyaguna ay qaadi doonaan talaabooyin cadcad oo ah inay sameystaan maamul gooni ah وهجاج هجوميها جبلان أحمد محمد سلام مذوبنا وحى وقاضي طلابه لا يابل كده مركي معلومات إيش الله يهد مملكيسه وكل واقعي إن ويهاي دولة مركزي مدح بنان Jubbaland ayaa ka guurtay si rasmi ah kaga guurtay nidaamkii federaalka iyadoo u guurtay dowlad rasmi ah warkan waxa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland inkastoo aan la ogeyn hadii madaxweyne Axmed Madoobe uu ku raacsan yahay in kale
laakiin golaha wasiirada ayaa la amray inay qaataan soo jeedinta guddoonka baarlamaanka ee ah in hadda wixii ka dambeeyo Jubbaland aan loogu yeeri karin dowlad goboleed xubinka dowladda federaalka taas yeelkeedana loogu yeeri doono dowladda Jubbaland tani ayaa ka dhigan in Jubbaland ay u dhaqmayso sida dowlad madax bannaan taa oo wadadeedu ay hore u furtay Puntland Soomaaliya ayaa sii kala tagtagayso iyadoo nidaamka federaalkana loo arko caqabada ugu weyn ee hadda ay la circiirayso dowladnimada Soomaaliya dowladda ayaa ay falanqeeyaashu siyaasaddu sheegayaan in awoodeeda siyaasadeed ay ku kooban tahay Muqdisho inkastoo ay isu aragto inay maamusho guud ahaan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed warbixinadaasi oo idil daawaday maxaa ku biirinaysa aragtida hoos noogule marka waxa idin wadaagayaa hanjabaadda booliiska ay u direen saraakiishii hore ee ciidanka qalabka sida hore waxa debdemiska sida la socotaa waxa dhagax dhiga taliya ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ujeedada iyo maqsadka laga lahaa dhulkan markii hore oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo deganaa laga baneynayna waxay in shacabka Soomaaliyeed lagu adeego shacabka caasimadan ku nool gabi ahaantii in lagu adeego dadka yowga hadda ku tirikuteenka sheegayana shalay adinku degan ayaa la idinka saaray in qaranku u baahday daraadeed maantay oo in la dhagax dhigayo oo in qaranka loo dhiso la rabo oo amniga dalkan iyo caasimadan in laga sugo la rabo inaan ugu garab siisana la kaga baahan yahay maahane inaad warku tirikuteena iyo ganacsiga la siiyo waa la dhisay inaad tirahdaan maahan dhulka dawladda haddii loo baahdo ciidan kaga baraysa ma jirto in la dhiso qof kasta oo si sharci darraa inta ku soo xadgudba sharciga yimaadana waxa la horgeynaa sharciga waxaana shacabka gaarsiinaynaa qofkii raba inuu fawdo iyo kala dambeyn la'aan iyo amni darro u horseeda dadkana waa la qabanaa miidiyaha dadka propagandada iyo waxba kama jiraanka marsiinayna waxaan leenahay waa la in kula xisaabtamaya sharcigana la horgeynaa iyadoo la marayo wasiiqo sharci qofka wariyaha xaq uma laha inuu tabiyo war been abuura xaq uma laha inuu tabiyo war propaganda xaq uma laha inuu war amniga qaranka liddu ku ah inuu tabiyo wariyo kuma ahan wuxuu wariyo ku yahay inuu waxa wanaagsan tabiyo waxa xun qof muwaadin loo geysanayo inuu tabiyana xaq u leeyahay si uu noo soo gaaraan laakiin inuu ka been sheego hay'adaha ammaanka oo ka been sheego taliskii booliiska gobolka Banaadir oo la dhagax dhigayo waa lagula xisaabtama mana looga harayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeyo guuto Asad Cusmaan Cabdullaahi oo si rasmi ah u dhagax dhigay xaruntan ayaa sheegay in taliska booliiska uu uga dan leeyahay dhismaha xaruntan in laga maamulo amniga caasimadda iyo jawaabaha degdega ah ee magaalada loona diyaarin doono hab casri ah dhagax dhigayno xarunta qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo xarumo kale oo booliisku ay leeyihiin aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay maanta inaan jaaniskan yeesho aan noqdo taliyihii booliiska Soomaaliyeed oo xilligan joogay oo dhagax dhiga waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Muqdisho degan gaar ahaan dadkii meeshan deganaa oo shacabka ahaa si gaar ah fariin ugu diro waxaan rabaa inaan idin sheego meeshan muddo ku soo nooleedeen 30 sano ku soo deganeedeen waa ku soo kifaaxdeen maanta waxaan anagu aan sameynayno guri aan leenahay maahan waxaan rabaa wax qaranka lagu adeegayo inaan ka dhisno inaan ugu taageertaan oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku taageertaan oo kambaniga dhisay oo hadda ninkan Kenyaanka uu nagala joogo lagala shaqeeyo waxay meeshan u fiican tahay amnigiina ka shaqeyn doontaa maxay anagu u dhisaynaa qaybta guud maxaa loo dhisay waxa loo dhisiyaa amnigiini gaar ahaan dadka halkan deganay si fiican ay uga shaqeyso marka cid baa la siiyay hebel baa qaatay iyo ganacsi iyo waxba kama jiraan meeshan qaybta guud baa laga dhisaa iyo jaamacadda hospital Madiina baa iyadana insha Allah